maanta oo kalena hadalka waxaan ka bilaabaa ilaaha aqoonna ha igu cadaabin eexna ha iiga tegin shalay waxay doortay 5 nin oo komishankii cusbaa ka mid ah waxaanay u doorteen gudoomiye shantoodu cabdirashiid riyaraac oo sidaan waan hore u sheegay siyaasi caan ah oo la wada yaqaan oo xisbi gaara ku suntan ah cabdirashiid riyaraac anigu waxaan u arkaa miina loo soo xambaariyey madaxweynaha ka u soo xambaariyeyna ma ahayn nin ka talinayey wanaagga iyo sharafta iyo karaamada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi buurmadow ayaa ka hadlay boqor buurmadow maalintii hore way weydiiseen jawaabtiisa waan ka muqortay laakiin maanta ka muqoran maayo wuxuu yidhi sankaa idin daloola in cabdirashiid riyaraac la aqbalo waanu ogaa in guddoomiyahana dee markaa uu noqonayo haddaba anigu mid quri baan u sheegayaa waddanka Soomaaliland la yidhaah mar dhacayso commission uu hogaaminayo cabdirashiid riyaraac oo dalkan doorasho ka qabanaya ninka sanka kaga mudaya waxow waa adiga iyo dee itaalka waayo dadka tan ka soo taliyey kamay talinayn ma aha wanaagga Muuse Biixi ee kamay talinayn midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliland oo aynu ognahay labadii sanadood ee ugu dambeeyay wax si kala socday mooyaane inaanay jirin wax isu soo socday arrintan haddii ay sidaa oo buurmadow yidhi noqoto taasi macnaheedu wuxuu noqonayaa in guushii kulmiye iyo guushii Muuse Biixi uu madaxweynaha ku noqday ay gebi ahaanba noqoto bilowgii dhammaadka Soomaaliland oo aanu jiri doonin madaxweyne Soomaaliland uga dambeeya Muuse Biixi